maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed Tarwale iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirid ku dhaxmaraysa deegaanka Dhumay ee koonfurta gobolka Sool waxayna ku baaqeen si shuruud la'aan dagaalka loo joojiyo. Maayarku wuxuu sheegay in dowladda hoose ahaan ay qayb weyn ka qaateen haddana ay qayb ka qaadan doonaan sidii colaadda loo joojin lahaa waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan baaq nabadeed iyo tacsi ku aadan fidmadii iyo dagaalkii ka dhacay tuulada Dhumay oo koonfurta Laascaanood 40 kilomitir kaga beegan magaalada Laascaanood aad iyo aad baan uga murugeysanahay arrinta uga xunnahay arrintaas way soo noqnoqotay maanta waxaan dareynaa baaq nabadeed kii ugu dambeeyay oo insha Allah aan rajaynayo inuu noqdo midkii heshiiskii uu dhaco heshiiskii abid aan dhibaato ka dambaysa u soo noqon waxaan leenahay labada beelood walaalaha ay dhalinyada ah ee isku deegaanka ah ee wax bini'aadayahayba ah inay xabadda joojiyaan oo ay baaqa islaamka maqlaan diraya baaq nabadeed kaasoo ku wajahan walaada ka soo noqotay koonfurta gobolka Sool deegaamada Dhumay iyo agaarkeeda waxaan leeyahay dhammaan inta halka ku dhimatay dhammaantood basamir iyo iimaan Ilaahay naga siiyo waxaan kaliya anigu hadal halkan ka leeyahay war aqligu ha shaqeeyo dagaalku waa inuu ajanda iyo qorshe oo ku wajahayahay lahaada laakiin maalin walba in konton qof ku dhintaan hebel baa dhintay hebel ha loo aaro ma inta aynu taaganahay hebel ha loo aaro hebel badan oo maanta nool baa inaga raacaya aqligu ha shaqeeyo la isu tanaasulo hadda la isu tanaasulina nabad la heli maayo waxaan ku qudro qaadataan dawladaha dunida oo Russia America meel isku weeraraan ma jirto nuclear maalin bas xasuuq kara hadal bay isu diraan idinkuna sidii geel jira isku yaacsan dadka xasuuqaysan ruux la aqligu ha shaqeeyo dhammaan qof kasta islaam oo halka ka damqanayana ha u kaco baan leeyahay shaqaaqadii murugada lahayd naxdinta lahayd filim waaga ahayd ee ka dhacday deegaanka Dhumay oo ka tirsan degmada Laascaanood markii koowaad intii ku dhimatay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariis jana geeyo intii ku dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu boogadhayo waxaan leenahay war dadka halka wada degan meel ay ku kala tagayaan ma jirto adduunyada inta la laabayo halkaas way ku wada noolaanayaan waa dad isku degaana waa dad ehel iyo qaraabo iyo xigto iyo xidid intaba maantana waxa ka dhex taagan waad aragtaan kullay hadalna golaha deegaanka iyo xukuumadda Soomaaliland ba talaabooyin degdeg ah la qaaday hadii la haydmo si hawshaas mar dambe aan u soo noqon wada socoteeno dawladdu waxay gelisay juhdi weyn 10 cisho ka hor ba halkan heshiiskii lagu kala saxeexday heshiiskaas oo marxalado badan soo maray in maanta haddana ay wixii dib u soo noqdaan wixii tacabka la geliyay iyadoo hore dawladdii hore madaxweyne Siilaayana tacab badan la geliyay tan maanta madaxweyne Muuse Bixi Cabdana 10 cisho ka hor bay ahayd markii hawsheedu dhamaatay haddana markaa soo noqoto waa nasiib darro kullay dadkii wax nala qabtay way naga jabayaan laakiin waxaan leeyahay dadweynuhu warniyo aqligu ah shaqeeyo maanta wax adduunka casriga u noqday wax la isku dilo ma jirto wax wuxuu dhiig binaadam la daadiyo wax faa'iido qofkii qof dila if iyo aakhiraba kullay wax u yaala if iyo aakhir midna liibaani maayo waxaan leeyahay markaa aqligu ah shaqeeyo xukuumadda Soomaaliland iyo haddana golaha deegaankana kullay talaabooyin degdeg ah baa la qaadaya hadii la haydmo oo deegaanka ku saabsan oo nabadda lagu adkeynayo Farxaan Maxamed Caydiid Somali Cable TV magaalada Laascaanood.